kulanti wanaagsan saaxiibayaal war kale oo degdega dawladda Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa goordhow mar kale ka dejiso gobolka Gado iyadoo hadda xaaladdu u muuqato in dawladdu ay bilowday sidii ay uga hortagi lahayd dhaqdhaqaaqa Itoobiya iyo hanjabaadii ay u gudbisay horay taasi oo ahayd in Cabdirashiid Janaan 3 cisho gudahood uga baxo gobolkan waxaan soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ciidamadan la geeyay halkan qorshaha ay wadaan sidoo kale waxaa war soo saaray gudoomiyaha degmada Beledxaawo isagoo war ka soo saara xaaladda degmada iyo sidoo kale barakicii ka dhacay shacabkii ayuuna baaq u diray haddaba muxuu yiri waran idinkaga haynaa gabagabadana waxaa daawo doontaan mooshinka ka dhanka ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waji cusub yeeshay iyadoo xildhibaanada hawshan ku howlan hadda ay war kale oo cusub soo saareen haddaba maxay sheegeen xogan idinkaga haynaa qodobadaas aan jeexjeexaynaa laakiin ugu horreyntii daawada ka aragti dhiibo xaaladda gobolka Gado dawladdu ma u muuqataa in hadda ay fahamtay qorshaha Itoobiya isla markaana ay gadaal ka soo baraarugtay dhinaca kale ma habboon tahay in xilligan xilka la dhaafiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre aragtidaada noo reeb adigoo ku qoraya qaybta hoose ee faallada fariintana meel dheer gaarsii halkana ku soo biir si aad u hesho xogaha degdega ah aynu ku bilownay saaxiibayaal goordhow degmada Beledxaawo ee gobolka Gado si gaar ah xerada UK oo halkii ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee uu horkacayay isla markaana ka amar qaatay Cabdirashiid Janaan waxaa ka degta diyaaradda aad arkaysaan ee ah nooca qomaatiga u kaca ama helicopterka waa diyaaradaha ciidanka diyaaraddan ayaa waxaa saaran ciidamo uu hogaaminayo waa ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya waxaana horkacaya waa taliyaha ama kaariyaha qaybta 43aad gaashaanle sare Cusmaan Xaaji kuwaas oo goordhow halkaasi ka degay abaanduulaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Cusmaan Xaaji ayaa waxa uu halkan u tagay sidii uu yacni laba jabaari lahaa howlgallada ciidamadu wadaan iyo sidoo kale inuu bilaabo abaabul ka dhana qorshihii Itoobiya sida xogaha aan helayna ay tilmaamayaan sidoo kale saraakiil kala wehelisa macluumaadka aan helno sidoo kale waxay tilmaamayaan in waqtiyada soo socda iyo maalmaha soo socda halkan qorsheynayso dawladdu inay ku daabusho ciidamo hor leh qorshaha ugu weyn ee halkan ayaa ah in difaaca la xoojiyo deegaanada kale ee gobolka Gado ee gacanta dawladda ka maqan gacanta la soo geliyo maadaama Beledxaawo ciidamadii Jubbaland ay ku sugnaa toddobaadkii hore laga saaray haddana ay joogaan ciidamada dawladda Soomaaliya dawladdu hadda waxa ay qorsheynaysaa in doolowna ay gacanta ku dhigto inkastoo arrintaas aysan ahayn mid fudud sida muuqata maadaama Itoobiyaankii oo madaafiic tuuraaya ay halkaa joogaan sidoo kale dawladda qorshaheeda ugu weyn ee hadda ay rabto ayaa ah in ay maamul ka madax bannaan Axmed Madoobe isla markaana parallel ku ah halkaa ka hirgeliso arrintan oo dadka qaar ka digayaan maadaama loo arkayo inay noqon karto albaab yacni uu ka askunmi karo yacni caqabado hor leh oo dawladnimada Soomaaliya ku soo kordha si kastaba lama oga sida ay xaaladda ku dambeey doonto laakiin waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhawaan Itoobiya ay ku hanjabtay in 3 cisho gudahood ay u qabanayso ciidamada dawladda Soomaaliya ee Cabdirashiid Janaan horkacayo inay uga baxaan Beledxaawo arrintaas ma dhicin oo ciidamadii waa joogaan Itoobiyana wax tilaabo oo qaada ma jiro ilaa iyo hadda dawladda Soomaaliyana kama hadal laakiin si hoose ayaa loo arkayaa inay ciidamo ku daabulayso gobolka haddaba waxaa halkan ka hadlaya gudoomiyaha degmada Beledxaawo ninka lagu magacaabo Shire Cabdullaahi Cabdi Kaynaan isagoo ka warbixinaya xaaladda degmada iyo sidoo kale fariin uu u dirayo shacabkii ka barakacay dagaaladii dhacay ciidamada ammaanka gudaha bay u amrayeen hawshaas cidii ay arkaan in ay bulshada barakicinayso in tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadaan qodobkayga labaad waxaan rabnaa inaan halkan digniin uga dirno gaadiidleyda degmada oo runtii barakicinta qayb ka ah waxaan leeyahay dadka gaadiidka ku xamaashay ee degmada Beledxaawo arrintaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baqa dadka meelaha fogfog iyo degmooyinka fogfog iyo tuulooyinka inaad ka soo celisaan ma ogi dadka aad qaxinaysaan joojiye arrintaas Ilaahay uga baqa cidii lagu arkana insha Allah laamaha amniga tallaabo sharci bay ka qaadi doonaan gelino barakicinta la barakicinayo iyo barabagandada maalmahan socotay runtii bulshada dad umuriyana waa soo wacayo leh magaaladu macnaha mutaqaanaay way gubanaysaa waa gubeynaa waa soo galeynaa ka qaxo dhibaato noocaas ah iskaasaa geysanayo waxaan rabaa
bulshooyinka reer baled xaawo ee sharafta leh ee qiimaha leh ee maamulka u nahay inaan u sheegno u cadeyno magaaladu inay nabad tahay wax dhibaato ay ka jirin ganacsigooda ay furtaan guryahooda ay kusoo laabtaan kuwa hadda joogana nabad ay ku joogaan runtii waa nasiib darro nin xaaskiisii iyo caruurtii iyo hooyadiis in intuu soo waco uu dhaho uu barakiciyo waa nasiib darro aada iyo aada u weyn runtii waana wax lala yaabo bulshada waxaan leeyahay mar kale ugu celinaynaa in si nabad ku ganacsadaan guryahoodana ay kusoo laabtaan kuwa hadda joogana si nabad ay kusii joogaan runtii ciidamada ammaanka ee qalabka sida baa amniga magaalada gacanta ku hayo ayagaa u dhaartay dalkan iyo diintan iyo dadka Soomaaliyeed ee degmadan jooga ayagaa u dhaartay in badqabkooda iyo amnigooda ay ilaalinayaan intay ciidamadaas joogaan wax argagaxayaan idin gelin taanaga aan joogno wax argagaxayaan idin gelin xabsiyaan la idin gelin yaan la idin qaxin gurihiin nabad ku joogo qodobkayga labaad waxaan rabnaa inaan halkan digniin uga dirno gaadiidleyda degmada oo runtii barakicinta qayb ka ah runtii waxaan leeyahay dadka gaadiidka ku xamaashay ee degmada baled xaawo arrintaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baqa dadka meelaha fogfog iyo degmooyinka fogfog iyo tuulooyinka inaad ka soo celisaan ma ogi dadka aad qaxinaysaan joojiya arrintaas ilaahay uga baqa dadku ciddii lagu arkana insha allah laamaha amniga haddaba daawada maxay kula tahay aragtidaada reeb dhinaca kale haddii aynu fiirino mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa aad u xoogeysay hadalhayntiisu waqtiyadii la soo dhaafay warkan waa xaqiiq mooshinkuna waa mid jira laakiin waxaa hadda la isweydiinayaa ma noqon doonaa mid guuleysta mise wuxuu noqon doonaa mid fashilma sidii hore u dhacday dhowr mooshin oo la isku dayay in la sameeyo haddase arrintu sidii hore way ka xoogan tahay ku dhowaad 200 oo xildhibaanaha saxiixay iyagoo hadda kaliya sugaya furista kalfadhiga ugu horeeya ee baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo ku astaysay 23 bishan aynu ku jirno ee Agoosto sabtida haddii ilaahay yiraahdo haddii aan isbedel dhicin xildhibaanadii ayaa baxbaxsada haddaba waxaan sii daynaynaa saaxiibayaal waraysi laga qaaday mid ka mid ah xildhibaanada mooshinka ku howlan isagoo xogo badanna ka shifaya laakiin aragtidaada ka dhiibo ma habboon tahay in xilligan la rido ra-iisul wasaare Xamse iyo xukuumaddiisa caqabad intee la eg aysan ku noqon kartaa yacni maadaama aan ognahay in dowladda xasan sheekh ay u dhiman tahay muddo 9 bilood ka yar maadaama doorashooyinkii iyo waxaasoo dhan la sugayay in xukuumaddii hadda la rido caqabad intee la eg ayay ku noqon kartaa doorashooyinka Soomaaliya aragtidaada reeb waxaan aaminsanahay inay xukuumaddaasi ku fail garooday every ummadda Soomaaliyeed u baahnayd waa xukuumaddii ugu horeysay ee deegaanada Soomaaliyeed oo nabdoon intay ciidan ku daabusho dagaal la gasha waa xukuumaddii ugu horeysay kala dirta ummadda Soomaaliyeed maanta waxa loo baahan yahay in la badbaadiyo jiritaanka magaca Soomaaliyeed haddii tallaabo laga qaado waa xukuumadda maanta taagana god dheer in laga raadin doono madaxaana furanaya inta la halmaasha maanta rubuc saaca walba may soo qoreen qoraal may soo qoreen haddaanay ahayn waxaan wax adag oo xildhibaanadan u soo jeesteen inay badbaadiyaan waddankooda hooyo waxaan ku xaqiijin karaa inuu jiro kacdoon xildhibaan oo ka dhashay maamul xumada ragaadisay xukuumadda maanta jirta in ay xildhibaanadu isku tashadaan oo yiraahdaan dawladnimadii Soomaaliya iyo qarannimadii Soomaaliya si loo badbaadiyo waa in xukuumadda meesha laga saaro taasi horta bayskeedu ku salaysan yahay hay waata ma waxaa jira qodobo aad xukuumadda aad u cuskanaysaan mooshinkiina oo aad rabtaan inaad ku ridaan walaalo horta markii ugu horeysay xukuumaddan la ansixinayay waxa loo keenay blueprint oo baarlamaanka laga ansixiyay waxa qabadka dawladda u qorshaysnaa 4 sano ugu dambeeyay iska daa inay wax qabatay waxay hagardaamaysay ummadii Soomaaliyeed waan la soconaa xaaladda dhaqaale ee waddanka ku jiro waan la soconaa xaaladda dhaqaale argagixisada soo rogaal celisay goobihii 2022-23 la xoreeyay maanta ay gacanta ku soo wada dhigeen dhammaantood waan la wada soconaa musuqa ragaadiyay dawladnimada Soomaaliyeed waan la soconaa dhul boobka arxan darrada maalin walba islaan agoona iyo caruur agoona in guryahooda la daadafeeyo dhammaantood walaalow waa la wada soconaa waxyaabahaas horta aasaasi baysu ah in maaragtay xukuumaddan motion laga keeno waa tahay dad badan waxay isweydiinayaan waxyaabaha sida eedaha aad jeedinayso madaxweynahay ay leeyahay way ku bilaawdaan wayna ku dhamaadaan maxaad xukuumadda u taageeraysaan oo aad madaxweynaha uga leexanaysaan
dowladnimada sideedu waa saddex dhardhaar weeye waa executive branchka oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha legislationka oo ah golaha shacabka iyo meesha lagu yiraahdo judiciaryga ama cadaaladda saddex garab oo siman weeye dowladnimadu horta sidaasay ku dhisan tahay liidnimada anaga la xisaabtanka dowladnimada iyo korjoogtayntana lagu leeyahay darnaay xildhibaano laakiin fulinta hawlaha maalmeedka waxa looga fadhiyaa xukuumadda markaa talada haysa waxaan aaminsanahay inay xukuumaddaasi ku fail garooday every auto ummadda Soomaaliyeed u baahnayd waa xukuumaddii ugu horeysay ee deegaanada Soomaaliyeed oo nabdoon intay ciidan ku daabasho dagaal la gasha waa xukuumaddii ugu horeysay kala dirta ummadda Soomaaliyeed maanta waxa loo baahan yahay in la badbaadiyo jiritaanka magaca Soomaaliyeed haddii tallaabo laga qaado waa xukuumadda maanta taagana god dheer in laga raadin doono dowladnimada Soomaaliyeed waa tahay ilaa ay hadda intee xildhibaan oo mooshinkan qayb ka ah ama saxiixdood noo sheegi kartaa kuma odhanaya anigu number baa saxiixay laakiin waxaa jira kacdoon guud oo xildhibaanada waa tahay intaasaan kaga gaabsanayaa su-aasha aad weydiisay waa tahay xildhibaanada waxaa la aaminsan yahay inaysan tabar badan haynin oo ay hotel Nairobi ku yaala ay isku arkeen ay isku soo qaadeen inay mooshin diyaariyaan iyo in kale oo wixii aysan dhaafsiisnayn afka xubno ka tirsan xukuumadduna sidaas ay leeyihiin haddaanay awoodi jirin aanay xildhibaanadu awoodi lahayn hadda sideedaba in mooshin la keeno waa sharciyan waa dastuur waa xeeroosaad waa every sharci inoo yaalaba banaynaya in haddii ay gafaf gasho dowladdu ama xukuumadda markaa jirtaa in mooshin laga keeni karo waxba yaan la dhibsanin moshinku sidiisaba waa sixitaan yacni majaraha ay dowladnimadu ku socoto ayaa qaldan ee kasoo noqda weeye macnaheedu maaha wax kale maaha qarandumis maaha sida ay sheegayaan wasiirra halkana oo ku fashilmay dowladnimadii Soomaaliyeed ku fashilmay inay maalin oo dhan Facebook maciinsadaan haddaanay awood lahayn hal tusaalaan ku sheega madaxaana furanaya inta la halmaasha maanta rubuc saaca walba may soo qoreen qoraal may soo qoreen haddaanay ahayn waxaan wax adag oo xildhibaanadan u soo jeesteen inay badbaadiyaan waddankooda hooyo waa tahay wuxuu idinku tilmaamay wasiir jaamac qoraalkiisa in ay yihiin xuquuqlayaal aan tabarna haynin wixina jecel inay sameeyaan xukuumadda waxay meel ku soo hubsatay awooddii baarlamaanka ay mooshin ku keeni kareen oo ay xukuumadda ku ridi kareen waan jeclaan lahaa xildhibaan jaamac codka cidda u shaqeeyay inuu Soomaalida u caddeeyo inuu aflagaadeeyo ama xuquuqlayaal ugu yeedho siyaasiyiin Soomaaliyeed ama xildhibaano isagay kabta xumo ku tahay edeb darro ku tahay macna darro ku tahay mas-uuliyadna aanu qaadi karin waa tahay marka waa foolxumo kaasoo kale inuu ummad Soomaaliyeed soo hortaaga yidhaahdo wasiir baan ahay waxay sharaf darro ku tahay maqaamka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed bay sharaf darro ku tahay waxaasina wax loo dulqaadan kara maaha haddii aanay mooshinkani jirin ama dadka wada aanay ka dhiidhiin marxaladda waddanku ku sugan yahayna horta kababo hadleenba uu iska maaragtay uu afkiisu haysan lahaa hadduu og yahay laakiin wuxuu og yahay waxaa ku soo socdaa inaanay yihiin wuxuu xamili karo isaga iyo inta la halmaasha ee dumiyey dowladnimada ummadda Soomaaliyeed kabaqaadka waa tahay guddoonka baarlamaanka muddo badan caqabada idinka haysatay inay aqbalaan mooshinada aad keentaan kalsooni intee laga soo qabtaan in mooshinkan uu socon karo oo dhaafi karo guddoonka baarlamaanku sharci buu leeyahay guddoonka wax sharciya marka loo keeno ma diidi karo waa tahay hadduu diidana asagay u taallaa dad badan waxay leeyihiin dad badan waxay leeyihiin in isaga lagu wareejin doono waxaa la leeyahay mooshinka waxaa qayb ka ah xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saaxiibada madaxweyne xasan halkaas maxaa ka jira arrintaas walaalow afkayga maaha inaan ku idhahdo hebel baa ku jiray heblaayaa ku jirtay jaac baa ku jiray faarac baa ku jira mooshin wuu jiraa intaasaan kuu caddaynaya waa tahay haddii baarlamaanka uu furmi waayo hadda waqtiga loo qorsheeyey oo lasii dheereeyo muddada adinkana aad dibad joog tihiin maxaa qorshe ah oo idin yaala asab bay ku tahay waa constitutional waa dastuuri xilliga uu baarlamaanku xirmayo iyo xilliga uu furmayo wax qof jeebadii ku jira ama uu go'aan ka gaari karo inuu iska xidhnaado baarlamaan ma ahna waa dastuuri dastuurku wuxuu qorayo ayuunbaa la raacayaa
لكن قبل بعد ديديو الله فري مايو يهبلاي ديديو الله فري مايو wax baarlamaan kuma shaqeeyo sida waata fariintaada ugu dambaysa xildhibaan fariintayda ugu dambaysa waxa weeye in ilaahay ummadda Soomaaliyeed nasr u soo rogo beerkooda isjeclaysiiyo cadawga ummadda Soomaaliyeed argagixisada dhinac looga soo wada jeesto oo lala wada dagaalamo dawladda xukuumadda maanta jirtana waxaanu iyada lafteeda aanu leenahay waxa ku soo noqoto عندك دولة نمط مدة Soomaaliya way ka weyn tahay wax go lagu qaado oo hal shakhsi intuu tuurto gidaarada la warwareego way ka weyn tahay Soomaaliya waa qabiiladiisu tagay waa ummad Soomaaliyeed oo maamulo kala wada leh isku hayntooda iyo abuuridda kalsooni ummad Soomaaliyeed oo isjecel in la sameeyo waa mid aan rajaynayno dhamaantayo oo dadka Soomaaliyeed meel uga soo wada jeestaan dhamaan waxa laala waxa dhibaya gudo iyo dabadba ayaa mas'uuliyadeedu naga saaran tahay taas aanu ka shaqeynaa hadii la yiraahdo